بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي ألكن وبرت يوتيوب warbaahinta wararka maanta qodobada aad ku maqli doontaan hadduu rabbi ka raali noqdana waxaa qayb ka noqonaya muxuu salka ku hayaa khilaafka ka dhaxdhashay midowga musharaxiinta Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo bilowday baaris la xiriirta askari dhawaan Muqdisho lagu dilay xilli meydkiisa laga helay god qashin Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo tilmaamay inuu ku kalsoon yahay doorka doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble xilli uu markaasi soo ifbaxaya khilaaf saddex jiha oo u dhaxeeyo musharaxiinta dhexdooda iyo geesta kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay Gaalkacyo Rooble oo kulan gaar ah la qaatay xubno ka socda beesha caalamka daawadayaal intaas waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona ee barta YouTube ee warbaahinta wararka maanta haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee warbaahinta wararka maanta waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto daawade si aad ugu xirnaato mar waliba bartan YouTube isla markaana aad u hesho xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee alaaba aan idin soo gudbino ugu horeyn aynu ku bilownay muxuu salka ku hayaa khilaafka soo ifbaxayo ee ka dhaxdhexeeyo midowga musharaxiinta dhexdooda iyo sidaas oo kale wararka aynu helayno oo tilmaamayo in khilaafkani uu salka ku hayo arrimaha doorashooyinka xilli musharaxiintu ay markaas u kala qaybsameen laba jiho qaarna ay markaasi raacsan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta hanaanka doorashooyinka iyo sidaas oo kale qaabka uu wado halka xubno ka mid ah midowga musharaxiinta ay ka soo horjeesteen hanaanka iyo qaabka markaasi uu wax u wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kulan ku qabsoomay aaladda internetka ee Zoom-ka ayaa waxa yeeshay xubnaha midowga musharaxiinta iyadoona uu shir gudoominayo gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulankan ayaa midowga musharaxiinta ay sheegeen in uu markaasi ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka taagan iyo sidaas oo kale doorka uu markaasi ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya uu u qaatay arrimaha doorashooyinka iyo amniga iyo arrimo kale oo ay qayb ka tahay sirka lagu wado 20ka bishan iyo kaalinta markaas midowga musharaxiinta ay ku yeelan karaan sidoo kale musharaxiinta ayaa wax ay ka wada hadleen xaaladihii u dambeeyay ee siyaasadeed ee markaasi dalka ka jiray iyo kulankaasi muhiimka ah wararka gaarka ah aynu helayno isla markaana markaasi saraakiil ka agdhow xubnaha musharaxiinta aanu ka soo xiganayna ayaa waxay sheegayaan in kulankaas xubnuhu ay ku kala qaybsameen halka xubnaha qaar ay taageero u fidiyeen hanaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo dadaalada uu markaasi ku doonaya arrimaha doorashooyinka halka xubno kale oo ka mid ah midowga musharaxiintu ay dhaliilo u soo jeediyeen xubnaha sida gaarka ah u taageeray hanaanka doorashooyinka iyo qaabka uu markaasi wax u wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha midowga musharaxiinta sidaas oo kalena ahaa madaxweynaha hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in markaasi uu taageersan yahay qaabka uu Maxamed Xuseen Rooble wax u wado halka xubno ay qayb ka yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidaas oo kale Mustafa Dhuxulow Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay si wada jir ah uga soo horjeesteen hanaanka markaasi uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu wax u wado waxa ayna musharaxiintu ku kala qaybsameen hanaankaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulankaasi kadib qoraal uu kaga hadlay arrimo dhowr ah uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa bogaadiyay dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Rooble oo ku aadan arrimaha doorashooyinka waxa uu ku baaqay in shirka 20ka bishan xoog la saaro sidii dalka markaasi uu aadi lahaa doorasho degdeg ah oo ka dhacay oo markaasi ku dhacda xilligii loogu talagalay waxaan rajaynayaa in kulankan 20ka bisha markaasi lagu madalsan yahay kaas oo looga hadlayo dhameystirka heshiiskii doorashooyinka ee 17ka September inuu noqdo mid miro dhal ah oo markaasi guuleysta sida dalku uu u galo marxalad doorasho oo markaasi nabdoon raali laga wadayahay taasoo fura u noqon doonto in lagu qanco natiijada doorashada ayuu bartiisa gaarka ah qoraalka uu ku soo daray waxa uu intaasi ku sii daray waxaan sidoo kale kalsooni buuxda ku qabaa dadaalada socda iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee hormuudka uu ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aniga oo markaasi aaminsan in Rooble la siiyo fursad uu markaasi ku gato mas'uuliyadda weyn ee laga sugayo ayuu qoraalkiisa soo raaciyay qoraalka Sheekh Shariif Sheekh
Axmed kadib ayaa waxaa si toos ah markaas u soo ifbaxay arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay khilaafka soo kala dhaxgalay musharaxiinta dhexdooda. markana Gaalkacyo faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarax halkaasi ka dhacay. qaraxa ayaa goordhow ka dhacay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan meel u dhow hotelka Imbazi ee Galmudug kadib markii koox hubeysan ay isku soo xireen waxyaabaha qarxa. ciidanka booliska ayaa xaqiijiyay in ay dileen 3 qof oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo doonayay inay isku qarxiyaan magaalada Gaalkacyo isla markaana shacabka ay markaasi soo gaarin waxba khasaare ah. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in qaraxaasi ciidamada ammaanka markaasi ay fashileen sida uu hadalka u dhigay. 3 naftood halige oo qarax siday ayaa qorsheynayay inay isqarxiyaan ayay ka hortageen ciidanka booliska magaalada Gaalkacyo xaafadda Wadajir agagaarka Hotel Ambas dhanka Galmudug ayay markaasi kaga hortageen sida hadalka uu dhigay. afhayeenka ayaa sidaas oo kale waxa uu bogaadiyay isla markaana uu bogaadin u jeediyay laamaha ammaanka ee Galmudug waxa uuna tilmaamay in markaasi ay foojignaan dheeraad ah qabeen. sidaas oo kalena waxa uu bogaadiyay shacabka deegaanada uu ka arimay maamulkaasi uu sheegay in si wadajir ah ay ula shaqeeyeen. waxa uu sidaas oo kale tilmaamay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in wada shaqeyn buuxda ay la sameeyaan laamaha ammaanka mar waliba ay arkaan waxyaabaha qaarna ay ku soo wargeliyaan. markana wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay soo saartay amaro dhowr ah. wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland ayaa maanta qabatay shir looga hadlayay kobcinta canshuuraha iyo dakhliga Puntland. sidoo kale shirkani oo lagu qabtay habka muuqaal baahiyaha ee Zoom-ka ayaa waxa soo agaasimay ku-xigeenka agaasimaha guud ee dakhliga iyadoona ay markaasi ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland. geesta kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa oo ku yaala gudaha madaxtooyada Soomaaliya waxa uu markaasi kula qaatay xubno ka socda beesha caalamka. labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka, diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran iyo taageerida beesha caalamka geedi u socodka doorashooyinka. wararka laga helaya ayaa waxay sheegayaan in wakiilada beesha caalamka ay ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen warbixin la xiriirta diyaar garowga qabsoomida shirka wada tashiga doorashooyinka ee markaasi lagu wado 20 bishan inuu ku qabsoomo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. sidoo kale xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan shirka wada tashiga ah ee doorashooyinka isla markaana ay taageerayaan 20 bishan May oo ku aadan Khamiista soo socota ayaa waxaa la filayaa in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu markaasi ka dhaco shir wada tashi ah isla markaana looga hadlayo arrimaha doorashooyinka si heshiis looga gaaro bilowga arrimaha doorashooyinka. kulankan ayaa horay waxaa markaasi ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kadib markii lagu wareejiyay arrimaha amniga iyo doorashooyinka ayaa waxqabadkii ugu horeeyay waxaa qayb ka ahaa in markaasi uu ku dhawaaqo kulan wadajir ah 20 bishan in lagu yeesho magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. kulankani ayaa waxaa arrimaha looga hadlaya qayb ka ah dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar, dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa xubnaha arrimaha siyaasadda ee markaasi Soomaaliya ee isdiidan. shaqaaqooyinkii maalmihii aynu ka soo gudubnay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka dhacay iyo arrimo kale oo dhowr ah. daawadayaal markii oo aad kala socoteen warbaahinta wararka maanta guud ahaan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa. waad ku mahadsantahay la socodka iyo jaanqaadka warkayaga. halkan waa barta YouTube ee warbaahinta wararka maanta. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay aad soo booqato bartan YouTube waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee halkan aan idinkugu soo gudbinayn.